asalaamu calaykum daawadayaal, halkan waa waasan media, sidoo kale barta facebooka ee bashiir maxamed yuusuf. waan idinkaga mahadcelinayaa la socodka daawashada iyo warbixinada kala duwan oo halkan aan ugu soo bandhigo. mowduucan ka horeeyay waxaan ku soo bandhigay boqortooyada Sacuudiga iyo taariikhdii kala duwanaa ee waddanka la soo maray. asxaab badan ayaa falcelin ka bixiyay oo qaarkood si guud iyo si gaar ahaaneed ilo wadaaga arrintan. maanta waxaan rabaa bal inaan taabto arrin yar oo ku aadan dalkan hooyo Soomaaliya, dhacdooyinka ka jira inta badan joogto baan u soo bandhigi doonaa haddii aan leedmo. maantana sida halkan ku qoran ciwaanka ugu hadli doono waa qabyaaladda iyo kala sareysiinta dadka. sidaan ognahay laba meel baan dul istaagi doonaa. meesha koowaad waa dhaqanka aynu leenahay haddii aynu nahay Soomaali, oo ah guurkii iyo isdhexgalkii dadka siday u saameysay, iyo arrintii siyaasadda oo ahayd madaxii guud ee dalkan hoggaankiisii wax lagu kala qaadan lahaa, iyo fariin ama su'aal dambe oo gadaal dambe aan idiin soo gudbi doono. marka haddii aan ku hormaro marka kala sareysiinta dadka iyo beelaha sida loo dhigo kale dhibaatooyinka iyo adeegsiga erayo ka dhana qodobkan inaan ka hadlo waxaa soo jiitay kadib markii aan arkay dad badan oo baraha bulshada siyaabo kala duwan uga falcelinay, weliba marka xukuumad la magacaabayo kale dadka qaarkood aad ay u raadiyaan beelaha wasiirada ay ka soo jeedaan oo kale. si gaar ah waxay rabaan inay diiradda saaraan oo kale inay ogaadaan beelaha iyo sida xilalka kala sare ama xilalka sare ee dalka loo kala qaybsaday. haddii aan dul istaago qaybta dhaqanka ama heebsooca waxa la yiraahdo wiil ama gabar markay heshiiyaan oo ay damcaan in ay go'gooshooda ama hawshooda soo gabagabeeyaan gurina ay dhistaan si ay reer u yeeshaan. caqabadda ugu weyn ee la soo garso waa in ay reerka wax ugu horey la weydiinayo wiilku waa in gabadha uu guursanayo cid ay tahay ee reerka u sheego. sidoo kale gabadha wax ugu horey la weydiinayo wiilka reerku yahay in iyana u sheegto. waana caqabadda ugu weyn ee badana dhibaatada ka dhalan karta. quluub badan, dad badan oo isjecel ayaa arrintaas ku kala tegay. marka aynu eegno dadkaas waxyaabay kala tageen oo qaarkood qisooyin kala duwan aan ka soo ururshay, rag aan la sheekaystay, gabdho aan ka soo ogaaday arrimo la xiriira in wiil ama gabar jeclaayeen muddo ay wada socdeen lamaanayaashaas rabay in hawshooda guriga kusoo gabagabeeyaan, in ugu dambeyn lagu kala tegay arrin la xiriirta dhalashada ama jinsiyadda dadkaas ay ka soo jeedaan. dhalashada dabcan waxaa ula jeedaa beesha gabadha ay ka soo jeedo in wiilka la yiraahdo kale reer hebel isma geyno ama isma guursano, wiilka ama gabadha la yiraahdo reer hebel isma geyno ama isma guurgeysano, iyadoo loo adeegsanayo erayo badan oo lagu qurxinayo. taasina waxay keentay in quluub badan oo dad badan oo lamaanayaal ah rabay inay noqdaan meel degaan dhaawacyo ka soo gaaraan. marka waa dhibaatada ugu weyn ee dalkeena haysato arrinta la xiriirta qoyska. qof iga codsaday in aan magaciisa sheegin ayaa waxa uu sheegay in ay wada socdeen qof kale oo markii hawshii la rabay inay soo gabagabeeyay qisa xanuun badan oo xitaa haddii qofkaas uu ku sheekeeyo laga yaabo in qalbigaaga uu isrogayo dhibka loo geysta awgeed. laakiin waxa dhibkaasoo dhan loo marayana wax kale ma ahan, waa reerka uu ka dhashay uusan ku imaan wax asiga uu dooqday, laakiin wax uu Allah subxaanahu wa tacaala ugu talagalay in reerkaas qofkaas uu noqdo lagu naco. marka siyaasadda aynu eegno waad ogtihiin inta siyaasadda badan in siyaasadda lagu kala qaybsado awood qaybsiga beelahan sanadkii 2000 soo bilowday xilligii dowladda Cabdiqaasim la dhisay. qof ay joog ah waxa uu sheegay in xilligaas xal la mooday, balse haatan waxay u muuqataa in xeer laga dhigay marka la eego awood qaybsiga beelaha oo 5 beel ayaa dusha laga xusaa, laakiin marka gudaha ama hoos daadiga la eego waxaa la yiraahdaa 4.5 ama 4.5. taas macnaheedu waa beel ayaa la dhimay. waxay dhibaato ku tahay qofka beesha ka soo jeeda maadaama siyaasadii laga xigsanayo, quraasta qaarkood laga xigsanayo. waad ogtahay adigu naftiga waa aragtay ama waa daawatay ama waa dhageysatay ama waa aqrisay sida xilalka dalka loo kala qaybsanayo. tusaale madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, gudoomiyaha baarlamaanka, wasiirada ugu muhiimsan iyo xilalka kale si loo kala qaadanayo waa ogtahay. waxa saas loo yeelayo dhanna waa arrintan ku aadan qabyaaladda. marka hal su'aal baan ku weydiinaya, qalbigaaga ma ku weyn yahay ama ma ku jira in aad aaminto qof walaalka ah
oo magta magaca muuqa diyada iyo sidoo kale kula qaybsado dhaqanka oo kale kula qaybsado inaad hoos u dhigto halkii aad la rabay inaad awood ahaan sinaataan oo diiniyan xataa sinaataan waxba aan kala dheereen bini aadan tahay bini aadan uu yahay waxna la isdheereen laakiin ayadoo la eegayo nidaamka lagu jaangooyay in beelaha qaarkood la hoos dhigo beelaha qaarna laga sare marsiiyo haddii qalbigaaga taasi ku jirto waxaan ka codsan lahay inaad iska fiirto marka 6 dowlad oo dalka soo martay cabdiqaasim madaxweyne soo noqday nidaamkan ka soo bilowday Cabdullaahi Yuusuf waa lagu kala qaatay Sheekh Shariif waa lagu kala qaatay Xasan Sheekh Maxamuud waa lagu kala qaatay farmaajo sidaas oo kale awood qaybsiga beelaha lagu kala qaatay Xasan Sheekh Maxamuud marka la soo laabtay lagu kala qaatay marka qof kamid ah dad aan la kulmay ayaa hadda kor i weydiiyay wuxuu yiri goorma la gudbi doona nidaamkan beelaha qaar lagu haybsoocayo haddii dhaqankeedna lagu haybsoocayo ama siyaasadna lagu haybsoocayo goorma la gudbi doona ayuu su'aasha weydiiyay dabcan waa su'aal adiga aan ku soo gudbinayo dabcan wariyuhu inta badan wuxuu soo qaadaa fariin ama qofka su'aashiga wuxuu soo qaadaa fariin wuxuu u gudbiyaa dadka mudan ama dadka uu isleeyahay way ka jawaabi karaan dabcan adiga laga rabaa jawaabtaas inaad bixiso ugu dambeyn haddii aan soo koobo markaa sidee ayaa looga gudbi karaa in la suuliyo ama la baabi'iyo dhammaan in dadka la kala siraysiinayo iyadoo hadda siyaasadii iyo dhaqanka ay ku eg tahay waxaa suuragal ah haddii saan loo sii wado in waxbarashadii sidoo kale deegaankii ama derisnimadii iyo wixii la mid ah in la geeyo ama shaqada nafteeda xataa lagu kala qaato waad ku mahadsantahay la socodka toddobaadyada xiga mar walba dhacda noocaan kala jirto waa idin soo gudbi doonaa si aad ula socoto halkan kala soco fadlan subscribe saar horiix gambalaalka sidoo kale like saar barta Facebook ee Bashir Maxamuud dhacdooyinka qoraal sawiro muuqaalo iyadoo dal dibad meel walba dul istaagi doona haddii aad leedmo waad ku mahadsantahay la socodka daawashada wixii talay tusaalana qaybta hoose aragtida nagu dhiibi kartaa si gaar ah haddii aad u baahato aragti kale inaad nala wadaagtana dabcan baraha halkan ku qoran ayaa nagula wadaagi kartaa waad ku mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waasan media mar walba iyo meel waliba aad joogto ku xirnow si aad u hesho wararka macluumaadka warbixinada iyo dhammaan dhacdooyinka caalamka ka dhacaya